nimankiina maxamuud saleebaan waa iska sayna waxa aad ka shaqeynaysan dadka masaakiinta dhaqan celinta loo keenay dalka aad warqadaha u dhiibaysaan aad leedihiin muxuu ahay arday akhriya ka jooga way idin roontahay ka jooga haddaad ka jooga weydaan idinka idin daranta meel walba cuna qabateen inaad ka saar rawaan awoodna runta idin sheegaynaa waa idin tureynaa masaakiin baatiin tabar ma haysaan meel walba inaan cuna qabateen idinkaga soo rognaan awoodnaa oo qadaadka meel walba idin ka soo qabto Soomaaliya annaga hadda idinku xukunna wadamada dariskana annaga idinku xukunna haddaad edab yeelan weydaan waxaad mudantiin baa leedin marinaya haddaad edab yeelan weydaan waxaad mudantiin baa leedin marinaya dhaqan xumida aad maalin walba la taagantiin ilaa halgankii Sayd Maxamed aad maalin walba Soomaalina lugoysaan oo jilaafisaan aad u taagantiin maya inta ka badan leedin kama yeelahay hidda xuma bahya qobnin ogahay ma faaqidaa leey warnin waxa tahay adigoo isog ninka dhan ee caalimka ee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya inaad aflagaadayso xaasha lillaah haddii aad moodday inaan laga cabsanay ama aan lagu jawaabi karin jawaab dhammaystiran baa wixii maanta ka dambeeya ku bilaabatay ku talagal horta hadday hadal noqotana waa laga hadal badan yahay hadday gacan noqotana laga adag hadday gabay noqotana laga badan hadday qabiil noqotana laga badan Saciid Abdullaahi Danintu warqad soo qoray wasiirkiisa afwayeenkiisa ninkii wasiirka ay warfaafinta u qaabilsana uu leeyahay ninka meesha joogo wacel weeyo hooyadii way sinaysatay wacelima lagu dhalay uu leeyahay ninkina qaws iyo qabiil uu ka dhashay oo ogsoontihiin wiilka qaws iyo qabiil baa ku daafacayna saacada inta ka bilaabat warrakuma misla qabna wiilka qabiil iyo qaws baan ku daafacayna hadduun kolka hore maana u midaysneen anigu dadka aqoodaba miihi umaana midaysneen Ethiopia Kenya Soomaaliya Jubbaland Xamse Cabdi Barre war ma loo midooy raakumada ma loo midooy Xamse wal daafici Xasan illa uu dhaho war niman yahow kursiga Xasan haduu dhaho kursiga aniga rabo oo u dhaho madaxweynaha Soomaaliya taramkan raakumada ugu sharfa arintii kursiga uu noo siiyay awgeed baan ugu sharfaynaa hadduuna diyaar u ahayn kursiga raakumada tagi ayadoon cidna aan barnayn ayadoon shigshigaynin baan kursiga tagaynaa oo Soomaali aan u jaangoonayna oo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya la soo magacaabo sanadkan aniga aan soo magacaabi hadlay yaan la hadlaynaa dani waaye ya reerkooda ma jecel anigu inaan qabiil uskado runtii